Carlo Ancelotti tobankii Juun 1959 dhaladay waa tababare Talyaani ah xirfadiis banoonka luto ay ciyaaryahan horyahaada jaray hatase waliba maamulo la magacaabay in nagada kooxda La Liga ku dhisan Real Madrid. Ancelotti waliba uu soo kumidaya saddeed tababare ee ka guuleysaday UEFA Champions League saddex jeer lama jeer Milan lagaadi meelaha halkalaan uu kala guuleysaday Real Madrid. saasoo kale waliba uu soo kumidaya kaliya lamada kooxood ee la deeri finaalka afarta Champions League. waliba uu ka guuleysaday FIFA Club World Cup lama jeer uu soo maamulay isla Milan iyo Real Madrid. Ancelotti saasoo kale waliba uu soo kumidaya todobada qofood ee ka guuleysaday European Cup ama Champions League uu soo ciyaariyaan iyo maamulo waliba lantixi geliyay inuu sayiko kumada haan maamulyaalka Ankafayla ebit banoonka luto gudaasha markilan fiiri iyo Eva Nanest Carlotti. Ancelotti waliba uu sahay ciyaaryahan qadaxe waliba uu xirfadiis ku bilaawday kooxda reer Talyaaniga ee Parma uu soo ku caawiyo ka guuleysiga dadaalowga Serie B 1979 waliba uu dhagaagay ee Roma xil ciyaareedkii shahiga usoo kala guuleysaday horyaalka Serie A iyo afarta ee Coppa Italia. saasoo kale waliba uu ciyaaray kooxda Milano dhamaadkii 1980 oo kala guuleysaday lama horyaalka iyo saasoo kale ee lama koobka Europe iyo horyaalada kale heerka caalamiga. waliba uu sahandhelay xulka qaranka Italia 20 jeer usoo dhali hal gool oo shileedisa maxaan weeriyaan waliha kaliya qadax walina uu muuqday lama koob adduun usoo ka dhamaysaday kaalinta saddexaad tartamadii 1990 iyo saasoo kale UEFA European 1988 meelahaasoo kale uu caawin ku hay qaranka Kiisha iyo Diiraan nus dhamaadka xilligaas ee tartanka koobka adduunka. Ancelotti maamul ahaan markii fiiri waliba uu ku shaqeeyay Rangers, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli iyo Everton. waliba uu ka guuleysaday horyaalada maxalliga ee sida Italia, England, France, Spain iyo Jarmalka. aanasoo micnashay in uu ka guuleysaday koobabka Serie A Italia, English Premier League, Ligue 1 Faransiiska, Spain Serie La Liga iyo Bundesliga Jarmalka. madagalaan heerarkii Carlo Ancelotti uu dhaxmaray kooxooyinka oo guud balse reed hangnagashadiis garoonka Santiago Bernabeu Real Madrid iyo taariikhda banoonka la tumaanka dhaganta 25 Juun 2018 Carlo Ancelotti nagaday maamulaha Real Madrid bedelkiisu bedelay macallin Jose Mourinho kaas yasahay kooxda maamulaha uu soo heliisa 3 sanadood xilligaas la galay. shirkad jaraa'id markaas lanka ka dhawaaqay Carlo Ancelotti inuu saayay macallinka Real Madrid sanadii 2018 waliba saasoo kale lanka dhawaaqay macallinka mucjisada nagadi Zinedine Zidane iyo saasoo kale Paul Clemente iyo nagada doonaan kaaliyaalka lamaad ee tababaraga walyar kubada kooyowka kiishay. weeryahanka reer Argentina Gonzalo Higuain yase kooxda ku kutabi beesadaan 4 milyan oo euro usoo markaas ka biiray kooxda Napoli taasna waliba yeedo wehel nagatay gadowka Mesut Ozil ee Arsenal waliba yeedo jidka hirtay saxiixii usub ee rekoorna nagaday adduunka ee Gareth Bale iyo 10 milyan 105 milyan oo euro nan dhiganta kaasoo ku koy kooxda Tottenham Hotspur xilligii uu Carlo Ancelotti suroogi naadiga Real Madrid. mukumaran saasoo kale Carlo Ancelotti inuu suroogi xilligan Real Madrid ee kooyowka kiishay bilowkaba waliba uu ku dibaangeliyay ee guulal kaleeta. kulankii horeeyay tababarle Carlo Ancelotti soo gaami 18 Agosto 2018 Real Madrid lama iyo halyeedoonku kubadeeda Real Betis oo manka kiisha roogta. markii Real Madrid roogi Ancelotti yasan ka dambeeyay in uu fiirsaday dhanka shaxde 4-2-3 halkee kaasoo hogaami in uu sahay ko beddelka ka sameey qaab ciyaareedkii 4-3 ee uu saameynta weyn ka lahayd heerarka naqshada ee macalinka dhanaga kii ku soo gaamiyay.
shaxdaasna waliba yeeda horseetay ee garabka reer Argentina ee Angel Di Maria inuu sagaarka nagada ee kan gafayla qadaxyada garabka midigta ku dheelow waliba uu door muhiim ah ku qaaday ka guuleystada koobate tumiyaanayletii April 2014 Carlo Ancelotti waliba uu ka guuleysaday koobka shanka horeeye ee wing usoo tababaran Real Madrid kurid markii la miyoonay hal ku adkaadeen Barcelona finaalkii Copa d'Italia kaasoo salaka goobadii ee Mestalla Stadium 29 April Real Madrid sayeedo kubadida Bayern Munich sama finaalkii Champions League wadar ahaan ciyaartay ka dhamaatay 5 eber hal iyo eber Real Madrid iyo 4 eber Bayern Munich iyo on los balasmo yeeda deerti finaalkii in ka horeeyay tan iyo Marquese usareed hanka guuleysadeen ee Champions League sanadii 2002 24 Maaj Real Madrid waliba uu kala guuleysaday koobabkii toddobaad ee Champions League kureed Marquese uu kubadii Atletico Madrid ciyaartiinka dambeyntii ka dhamaatay 4-1 waqtiga dheeraadka la ka dari waliba uu sanagaday tababaraha lamaad ee kureed Liverpool ee Bob Paisley oo saddex kala guuleysaday tartanka iyo Ilankan ka horeeyay ee ka guuleysada Champions League iyo Europa League lama jeer higay hal xil ciyaareed iyo saddex in uu maamulo ku haye ilaa iyo hatase Marquese la kutaba ka guuleysiga Champions League waliba uu ka dhamaysay kaalinta saddexaad ee La Liga taasoo suurtageliyay in xil ciyaareedka higana uu sahanbaha dhanka koobka UEFA Champions League استرابرابka booska lamaad ee Barcelona iyo ka guuleysigii Copa del Rey tum ilaa madi Agosto Carlo Ancelotti waliba uu ka guuleysiday koob kale ee Europe usoo Real Madrid ku hogaamiyay 2 eber markii uu ku kubadiyeen Sevilla sanadii 2014 iyo UEFA Super Cup afar bilood inka dambeeyay 2014 koobkii shay waliba yeeda ka dhakanaaytay rekoorka Isbaanishka 22 guul ee xiriirka kaasoo dhamaanba tartamada oo dhan bilaawday 20 September isla markaas ay teena dhamaatay Real Madrid oo markii in horeeyay hanati FIFA Club World Cup bil December sanadii 2014 mucjisada Carlo Ancelotti waayogaas kala bilaawday naadiga Real Madrid yasaatay dhaliyay inuu Sri Lanka kanaga shahada kooxda wali intamaka kooban ee shahada macalin Carlo Ancelotti kooxda banoonka Real Madrid ee ka dhamaysado ka sanadaas ee kaalanta 2014 koob u sahanadi usoo wali ka jara kaalanta saddexaad xilli ciyaareedkii 2018 La Liga waliba uu sanagaday tababaraha horeeyay Real Madrid ka dhamaysada meel kubasan lamada anka sareeyay ee La Liga tan iyo xilli ciyaareedkii 2018 saasoo kale tababaraha horeeyay Real Madrid ka dhamaysada dadaalka guulata xifaaltinimada Ancelotti iyo xilli ciyaareedkii 1995 kowdii December 2014 Carlo Ancelotti la magacaabay inuu sanagada kokumada sadeeda unsuran abaalmarinta FIFA ee tababaraha sanada 2014 inta la ka guda jaray 19 Janaayo 2015 Ancelotti waliba uu ka darsamay hoolka banoonka loote ee Talyaaniga iyo saasoo kale 20 Janaayo 2015 waliba ka guuleysaday abaalmarinta IFHS ee 2014 usoo nagade tababaraha anka fayla naadiga adduunka Real Madrid ka dhamaysatay xil ciyaareedkii 2014 iyo horyaalka kaalinta lamaad ku jartay iyo 100 gool muddadaas iyadu sandaliya waliba lagu reebay wareega 2000 ee Copa del Rey 25 May madaxweynaha Real Madrid Florentino Perez ka dhawaaqay in maamulka kooxda iyada deereen go'aan idan adag sa Ancelotti markaas City ku qaada shaqada sida dhaqsada leh Perezna waliba uu sheegay in ka qasbanaaday qolobta gudbiyo ka taageerayaalka iyo in nagadan haano baahanayeen koobaba taasna ha afjarti waayogii ee mucjisada la haytay Carlo Ancelotti uskaroogi kooxda banoonka Real Madrid Ancelotti walba booskiisa ka lahay taageerayaalka kooxda may weeli waliba uu sahay tababaraha halgambi isla markaasna December lanka magadare habahato waliba uu sanagaday kooxdii dabaaldegyada kuwiin yeeda sameeyay waliba yeeda qayb ku haytay heerarka nidaamka shalgadiisan ee kooxda qaybasho sameeyay
waliba usahay ka guuleysaday koobabkii la yaabka lahay isdabihigi isla markaasna kooxda horseetay in uu sanagada koolka guuleysaday kooxya iyo markaasna magacayaan taariikhda ka lahayti guureed markii uu ku tabi Real Madrid Ancelotti waliba uu wada hadalka la bilaaway reedanka nagada naadiga AC Milano sanadan 2021 biliya koowaad ee litaya Marayt yasar rasmi lanka ka dhawaaqay in uu sameeyay macalinka kooxda Real Madrid isla markaasna lagu dhool sugahay in uu markale maamulo doono sidii qayban ku nagada lahay heerarka shaqada ee kooxda Real Madrid markiisa shaqada uu ku tabi macalinka kooxda Real Madrid Zinedine Zidane yasar Real Madrid iyada ka dhawaaqday magacaawista taasoo toddobaad ku reed Zidane baa ku kiishay Real Madrid iyada shantii English uu weydiiyay tababaraha lang magacaawo doono la xiriiriyo laakiin madaxweyne Florentino Perez yasar Maronglia ku dhax muuqda shaashadu soona ka dhawaaqay in uu Carlo Ancelotti ay macalinka kooxda banoonka Real Madrid isla markaasna ku hayoomi kooxda horyaalka English Barclays Premier League ee ku dhisan ee kooxda la magacaabo Everton yasa sanadkan yaada ka dhamaysay booska tomonaad ee Chelsea ku horyaalka Ingiriiska Ancelotti iyo xilli ciyaareedka 2021-2022 bandhig ciyaareed yeel wada sugida haysan gada doonta hadii sawirradan ka nagadi mankiisa mucjisada ka lahaya